هناي odaygaa ugu seexan waaye aruutaada ciil bay la ooyeysaa ani 8 jir baa tahay aniga ima dhowid anigu gashaanti baana dad waa yaabay gaaladaa ku sixirtay inaadeeda min sayid kawta sheekh Mustafa ka Hi guys, waa idin salaam kulanti waxaan wanaagsan meel kasta aad joogtiin ku soo dhawaada haddii aad nagu cusubtahay subscribe ka naga hilmaame haddii hore noola joogtaan lagta aan sheerta iska saar waxa ka dhigmo saanagan muuqaalka waxba inaad tiraysaa lagtaada soo dhawaada waxaan ka fikrad ka dhiibnaa Kamaan Cabdalla bariyahan dadka badan ayaa ka soo wada hadlayeen ayaa soo wada eedeynaya barnaamijkiisa wuxuu ku soo gabagaboobay asaga ayaa YouTube-kiisa dhamaarkiisa u dambeeyay ka soo hadlay asaga wuxuu sheegay in arrintan gabadhani ku qiyaantay 8 cunug asaga hore u soo rishkoogeen ee shanta hadda uu noolba oo asaga biri ka yahay soo isagana dhaartay asagoo qiirasan janaalkiisa oo soo hadlay xaalado laakiin waxa kale oo news ah idin haya qiyaaray inuu bartiisa Instagram ko hadda muuqaal uu ka diradgeliyay uu sheegay muuqaaladii dham uu ka bixiyay bartiisa Instagram ka ayuu wuxuu ku soo qoray qoraal yar oo ku dhahayo aniga iyo Hani maanta ka bilaabato waxba nagama dhaxeeyo gabadhaasi oo yacni ku sheegayo muuqaal qiiro leh ayuu ugu soo hadlay hasahatee hadeertan wuu dareed gareeyay taati aniga waxa la yaab hooyo 8 curuure ee dhashay in kartay waxaad ka milaysan kartaa qof nool hadii ay dishane in inkir lahayd haddana waxa ugu dhiiran leh markii la wareysanayo wareysigii uu saxaab bixinayay in wareysigeeda ku sheegto si dhiiran leh ama iyadoona qiiraysneen ee ugu hadashay una faafaysa in ilmahaas bataatan ee dhali karin ee qabinbo sida ugu hadlays waxaad moodaa eegtid in wax ruun ay sheegayso wala yaab waxa kale oo dad badan ayaa ka soo hadleen sidaad aragtay muuqaalka hore u dhaxsan gabadhan ka hadlaysa maamadaas waxa la sheegay Kamaan inay isku yar dhaw yihiin ay eedo labaad amal ay u tahay ka soo hadleen dadyo badan ayaa ka soo hadleen waxa kale oo ka soo hadlay ninkii gabadhaas adeer isku sheegay oo gabadhii meheriyay asagan leeyahay aniga waxba kama ogeyn waa la qiyaamay gabadhan waxay tiri waxa waay gabar loo meerinaayo oo ilmaha soos ku dhasheen amal oo hooyo aabalaante hayaa gabadhan ina u doontiya loo baahaya Soomaaliya lacagta soo qaado asagana muuqaal ayuu ka soo sameeyay waxa kale oo la yaab leh gabadhan sida ay ku dagto waxa moodaa sheekadii filmaanta aan daawadin ama qisooyinkii inay waxa u maleynaa gabadha ama film soo daawad maalin hore ayaa waxaan arkaynay nin dhahayo tuug ayaan ahay tuug gabdhaha dhici jiray wuxuu yiri film ayaa ka soo daawaday gabadhana waxa laga yaabaa film in soo daawatay filimka si direction oo sameeynaysa waa la yaab qiyaamada intaas la ega kale wax ku sabay garamaayo haddana waxay sameysay qiyaamada waqaan professional in aaba kala sameeyay family kala sameeyay marka qaar waxa leeyahay maskaxiyeen ma waxa xanuunsan tahay hasa ahaatee أنا سيدة إلى تاي بس كحين وما حنوصنا صوته وحكى أركزها هذا الير وسحاف مركو ودينا ويقولي قبل هذا يرتك كبرن وحي قلت له قبل هذا يرتك ياوا يعني سؤال وجواب بس أي كرتا إن يرى حنوصنا يعني الله أعلم لا بقول علم إن حنوصنا ولا يا لكن وأرن لا ياوا لما كلها تي كودي نقبل عوضي معجزة وحنا كجرن النمان إن كراي ناقونا قبرس إسكيغا ناقا ما قبنو هذا waxaa timid oo la yaab 2020 iyo labadii bilaawatay naag inay inkirto ilmaheeda 5 cunug ee tirinin hore soo qabay ee hadda firta sidii nin kale ku hantiso ay jacayl ku siiso waa arin la yaab leh hadda meel cidla ay taagtahay Kamaan ayaa soo qoray qoraal yar oo ku sheegay in gabadhaas waxba ka dhaxeen maanta laga bilaabanay ee balaanka maray hasa ahaatee dan muuqaal kasto YouTube ku jira ama Instagram ku ka hayay ama TikTok uu ka wada saaray bartiisa social media anagana waxaan leenahay hadal nagu cusub tahay subscribe ka naga hilmaamno like iska saar shaytan iska saar wee assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh